صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. dhammaan waxaan u mahadnaqaynaa xubnaha golaha dhexe ee dhameystay processkii ay ku qaadanayeen kaarka oo ku dhow gabagabo iyo maalmihii ugu dambeeyay waxa aan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa mar labaad iyo mar saddexaad ba xubnahaasi sida fiican u dadaalay ee dhameystirtay dhammaan processkii looga baahnaa oo aad u badan waxaan doonayaa inaan ogeysiiyo xubnaha golaha dhexe ee rasmiga maanta oo ah maalin Isniina bishuna tahay 23 inaan ugu baaqayno dadka iyagu processka barmaray kaadhadhkii aan wali qaadanin ee kaadhadhkooda xarunta yaalaan in ay kaadhadhkooda qaataan ugu dambeyn ilaa birrito ay qaataan oo saalisa si ay inoogu dhammaystiranto inaynu u guurno maalinta Khamiista oo ah maalinta ugu dambaysa ee xaruntu dhammaanteed ay u guurayso magaalo madaxda gobolka Togdheer Burco shirkuna uu ka bilaabmi doono maalinta Sabtida bishuna ay tahay 28 sidaa darteed waxaan xubnaha aan wali kaarka qaadan aan ogeysiinayaa in ay xaruntu u shaqayn doonto ilaa iyo maalinta Arbacada xubnahaasi kaadhadhku u yaalaan iyo xubnaha wali dhiman inay ilaa maanta Arbacada u shaqaynayso saacadu markay tahay 5 galabnimo maalinta Arbacada ee fooda inagu soo haysana xaruntu dhammaanteedba ay u guuri doonto wixii ka dambeeya magaalada Burco qof dambana aanu imanaynin xarunta oo kaadh soo doonanaya waxa kale oo aan xubnaha ogeysiinayaa inaanay jirin wax kaadha oo lagu bixinayo magaalada uu shirku ka dhacayo ee Burco dhammaan kaadhadhka waxa lagu qaadanayaa xarunta xisbiga ee Hargeysa ayaa laga qaadanayaa ma jiro kaadh laga qaadanayo Burco marka dadka iyagu quudaraynaya in ay kaadhadh Burco lagu siinayo waxaan ogeysiinayaa inaanay arrintaasi jirin waxa kale oo aan iyadana xubnaha rasmiga ee golaha dhexe ee dhameystay processkan kana qayb galaya shirka aan iyagana u sheegayaa oo aan ogeysiinayaa in ay tahay inuu qof kasta maalinta Jimce uu ku hoydo magaalada Burco ee caasimadda gobolka Togdheer si uu uga qayb galo shirka oo maalinta Sabtida ee 28 ka furmaya qof kasta oo kamid ah xubnaha rasmiga ee processkaasi dhameystay waxa uu fariimo ka helayaa systemka xarunta ayaa fariimo soo diraysa sida uu soconayo iyo qaabka uu u degayo iyo waxyaabaha la midka waxa uu ka helayaa mobilkiisa gacanta uu ku sito ayuu fariimaha ka helayaa marka xarunta ayaa fariimo ku soo siin doonta ugu dambeyn maalinta Jimce waa inaad Burco gaadha hadii Ilaahay ka dhigo marka waxaan aad iyo aad ugu adkaynayaa xubnahaasi rasmiga ah ee iyagu dhameystay processkooda in ay maalinta Jimce dhammaan wada gaadhaan magaalada Burco hadii Ilaahay ka dhigo qaabka iyo wax walbana waxay fariimo kala helayaan xarunta oo ay si toos ah ula soo hadli doonta fariimana soo gaarsiin doonta waxa kale oo aan iyadana u sheegayaa xubnaha golaha dhexe inaanu jirin ama aan la aqbalaynin qof aan sidan kaarka xubinnimo kama qayb galayo shirka golaha dhexe ee ka bilaabmaya magaalada Burco 28 marka sidaa darteed qof kasta waa in uu ku dadaala sidii uu sii qaadan lahaa kaarkiisa ogow inaanad gelaynin hoolka shirku ka dhacayo haddii aanad sidanin kaarka xubinnimada aad baa u mahadsantihiin